السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليد ميل كستا جبتين كسو دوادا channel كيني حارونتا عند عافمادك ولاشين شكري آدم بوله. maanta waxaan nii wadaa topic aad u xasaasi ah oo laakiin aad muhiim ah. cabasho ayaa badatay oo markasta dhinaca ragga iyo dumarka iyagoo isku cabanayaan, marna dhahayn dumarka ayaa sameeya, marna ragga. waa maxay topigan? waxa oo caafimaadkana lagama xishoodo, waana xaq waay in la sheego. ummadda muslimka ah Soomaaliyeed waxay ka faa'iideyso in la soo daayo. topican waxa waaye cuntooyinka u fiican ama dareemaha kor u qaado lamaanayaasha markay imaato dhinaca sariirta ay xaajadooda gudanayaan. cuntooyinkaas waxay kor u qaadaysaa haddaa cuntid ani lamaanayaashan qada dadkiis qaban ka hadlaa, single kama hadlayo. single kan dhila cuntooyinkan isku aadina waa cuntooyinka dadkiis qaba ee xalaash isku ah haday cunaan. cuntooyinkan hamigooda ayaa kor noqonayo, hadhow xaajadooda sariirtana si fiican ay u gudanayaan, energy badan iyo waxyaalo badan ay ka helayaan cuntooyinkaas. soo kusoo dhawaada inagoo mahadsan. cuntooyinka labada dhinacba markay cunaan oo maxaa la dhahaa hamigooda dhinaca sariirta ah markay xaajoonayaan hagaajinaysa. cuntooyinkaas oo kor u qaadaya ayaan rabaa halkan inaan kusoo daayo. cuntada ugu horeyso waxaa la dhahaa walnuts. walnutska waxaa lagu iibiyaa supermarketyaasha. waxyaalo badan hadda ka horna wuxuu ku jira cuntooyinka salabawan ayuu ka ciyaaraa, waan kasoo hadlay isagana. walnutska waa fruit yar oo waan kusoo dari doonaa isagoo sawir si dadka uga faa'iideystaan oo wareeg ah. dumarka iyo ragga uu u fiican yahay halkan, laakiin waxaa aad loola hadlayaa dhinaca ragga ayuu u fiican yahay la dhahay. waxaa wuxuu kor u qaadaa ragga biyahooda ayuu kor u qaadaa ayaa la dhahay. wuxuu kaloo u fiican yahay la dhahay maxaa la dhahaa markay imaado fatiliga waxaa waaye marka dhinaca caruurta ilmaha la raadinayo, isagana door weyn ayuu ka ciyaaraa. so walnutska labadiinaba cuna, rag iyo dumarba qofkaa tiidin ayaan digula talin lahaa. hadda waa lamaaniya asxaabta ogaada. marka walnutska saas waa lahay, wiilasha ayuu u fiican yahay zaaid, dumarkana ugu fiican yahay. cuntada labaad waxaa waaye strawberryga hadda ka horna kasoo hadlay, halkan kuma soo koobi doono. waxaa waaye fruits yal oo waxaa waaye oo waa kasisiin kulligiin baa la dhahay. wuxuu u fiican yahay strawberryga, wuxuu leeyahay zinc ayaa ka buuxa. zinkigana wuxuu u fiican yahay lahay markay imaado dareemaha ayuu kor u qaadaa. nin rag iyo dumarba dareemahooda kor ayuu u qaadaa la dhahay. waxaa la dhahay zinkiga levelkiisa hadduu kor yahay dhinaca dumarka waxaa markaas waxaa lahay dhinaca oo waxaa la dhahay sariirta aad ayay ugu firfircoonaysaa qofka dumarka la dhahay. dhinaca raggana sidoo kale la dhahay. wuxuuna u fiican yahay wiilasha dhinaceeda waxaa la dhahay biyihiisa ayuu kor u qaadaa ayaa la dhahay. hormonkana wiilasha waxaa la dhahay wuu hagaajiyaa, qalqalka ayuu ka bi'iyaa. soo marka waxaa la dhahay qofka marka waxaa la dhahay haddii uu kaa dhisan yahay zinkiga, haddaad dumar tahay aad rag tihiday, markaas waxaa ahaanaysaa qof u furfurcoon xaajadaada oo markaas lamaanahaaga ku dhibeenin, oo qof markasta active ayaa noqonaysaa. marka imaado dhinaca sirta ayaan ka hadlaynaa asxaabta. marka waxaa la dhahay nimankana waxaa lahay wuxuu kale u fiican yahay lahay hormonskooda iyo biyahana kor ayuu qaadaa. hormonkana wuu balance gareeya, qalqalka ayuu ka baabi'iya ayaa lahay. soo leh ku dadaala inaa hormonskiina ay balance ahaado, inuuna zinkigiina uu buuxo. zinka haddaa cuntooyinka oo dhan aa ka helinin asxaabta qaaliga doonta tabletyaasha cuna ayaan dhihi lahaa. so strawberryga waxaa lahay zinkiga ayuu u fiican yahay. waxaa kale cuntada saddexaad waxaa waaye avocado aad u jecelahay. avocado waxyaalo badan ee ka ciyaarta asxaabta qaaliga, wax kasta way ku jirtaan ayaan arkay. avocado waxay leedahay lahay vitamin B6 leedahay lahay. waxay kale u fiican tahay lahay markay imaadaan la dhahay xaajada sariirta la dhahay. waxaa la dhahay energyga labadoodaba ma daalayaan, kor ayay u qaadaysaa la dhahay. so vitamin 6 aad ayuu u fiican yahay. hormonskana way balance garaynaysaa. so ma noqonayo qof oo caajis ah dixda xaajada galaan oo dhaqso ma ka boodayaan, way wadan karaan shaqadooda. wax laga xishoonayo ma jiro. waxaa danta dadka muslimiinta ku jirta ee Soomaaliyeed waa inaan meesha kusoo daynayno. dad waaweyn ayaana nahay, caruur meesha ma joogaan. waxaa kale cuntada saddexaad waxaa le watermelonka waxaa waaye la dhahay waa qaraha muxuu fiican yahay lahay. qaraha waxaa la dhahay marka labada dumarka iyo raggaba waxaa la dhahay dhiigooda iyo naafiskooda ayuu dhaqaa u safeeyaa. markaas dhiigii ayaa si fiican u flows garanaya jirka bini'aadanka ah. markuu qofkii qof caafimaad noqdo oo jirkiisa nadiif ah oo dhiigiisa si fiican noqdo, of course wuxuu noqonayaa qof u firfircoon dhinaca sariirta. so waxaan dhihi lahaa
maxaa la dhahaa xabxabka ama qaraha ha lagu dhawaado asxaabta dumarka iyo ragabaha cunaan siba kuwa isqabaan ayaa ka sheekeynaya dad kale kama sheekeynayo waxaa kale oo fiican dadka lamaanayaasha dhinaca sirritanka imaado almonds waa looska muxuu u fiican yahay hadaa cuno waxaa le wuxuu improve garayaa circulationka waxaa waaye maxaa la dhahaa qofka bini-aadanka ah jirkiisa waxqaadkiisa ayuu hagaajiyaa wuxuu relax garayaa ayuu dejiyaa dhiiga masalkiisa ah amino acid ayuu leeyahay ayaa laga helay amino acidna waa organ kale waa vitamin kale meesha laga helo almonds haddana wuxuu u fiican yahay ragga zaid ugu fiican yahay even though asxaabta dumarkana u fiican yahay laakiin waa inaan u sheegno qofku zaid ugu fiican yahay soo ragga Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa yaa liiniga weynin waa arkay wax badan kuwa badan cunaan run ahaantii siba kuwa qaadka cunaan ayaa cunaan laakiin kuwa kale caadiga waxaan dhihi lahaa dadka bacad yaa liiniga weynin cuna cuntooyinkiina ku darsadaa halshiita looska aad iyo aad u fiican yahay energy ayaa laga helaa qofka cuna even skinkiisa maxaa la dhahaa maqaarkiisa hilibka maqaarka oo qofka bini-aadanka ah uu isbedelaya jirkiisa ah ma daalayo wuxuu noqonaa qof xoog leh maasha allah tabaaraka allah waana waxa loo baahay ninka ragga inuu noqdo ninka iyo naagtaba labadaba isqabaan cuntada kale oo iyadana ku jirto waxaa weeye dark chocolate-ka oo madow waxay u fiican tahaa la dhahay moodska waxaa laga wadaa qofka lamaanayaasha markay rabaan xaajadooda inay gutaan ma la rabo in qofka uu dareemo caajis isdabajiid ma la rabo waxaa la rabaa dad firfircoon oo farxaan iha marka waxaa la dark chocolate waxay ka caawinaysaa maxaa la dhahaa dhinaca oo moodska af Soomaaliya soo sheegsan asxaabta yaman video badan ma duubin xamal af Soomaaliga iyo daro iga carray moodska ay kor u qaadaysaa qofka xigadiisa qof farxan oo xal firfircoon soo qofka markuu firfircoon faraxsan yahayna of course wixii way ficnaanayaan meesha waxa ka imaanaysa farxad badan iyo dhaqdhaqaaq badan ayaa ka imaanayo cuntada kale oo aad ugu fiican lamaanayaasha isqabaan dhinaca sariirta waxaa waaye ukunta maxaa ka helaya ukunta waxaa ka helaysaa protein number 1 waaye proteinka jirka bini-aadanka hilib jirka bini-aadanka ayay dhistaa waxaa kale u fiican tahay qofka energy badan uu hela qofka mada laguma yani cuntooyinka dhaqsi jirka bini-aadanka baxa ma aha aad ugu fiican tahay iyadana aan dhihi lahaa ukuntana ha cunaan dadkaas isqabaan waxaa kaloo u fiican la dhahay kaafeega aad ayuu u fiican yahay la dhahay wuxuu leeyahay la dhahay waxa laga rabaa maalintii hal koob inay cabin haska badinna asxaabta marka maqashin kaafeega wuxuu u fiican yahay lamaanayaasha dhinaca sirta hadhow 10 koob badna xanuun waxyaalo badan uu leeyahay run ahaantii waa inay la kaftamaya waxaa la dhahay wuxuu isagana u fiican yahay la dhahay wuxuu kor u qaadaa hamiga oo labada qof ale markuu kaafeega salaadii soo koob cabtida la dhahay maskaxdana aad ayay u shaqeynaysaa waxay noqonaysaa maskaxda forta ayay ku noqonaysaa soo aan lahaa koob subaxdii ka caba waxaa kaloo asxaabta u fiican la dhahay cuntooyinka oo lamaanayaasha kor u qaado waxaa waaye la dhahay binge la dhahaa binge-ka waxaa waaye vitamin C-ga ayaa aad ugu badan yahay wuxuu qaas ahaan u fiican yahay ragga muxuu ugu fiican yahay wuxuu improve gareeyaa biyihiisa ayuu biyo u badiyaa kor u qaadaa quality-ga of sperm-ka hadduu biyihiisa ahaa biyo waxtar lehena waxtar ayuu ka dhigaa waxaan kaloo dhihi lahaa wuxuu kale u fiican yahay dhinaca ragga binge-kaas waxaa la dhahay fertility markuu yimaado dhinaca dadka raadina caruurta iyadana waxaa la dhahay iyadana u fiican yahay la dhahay oo wax iyo dhoolaha iyo damage ku jira ayuu hoos u dejiyaa ayaa la dhahay soo waxaan dhihi lahaa ragga cuntadaas vitamin C-ga zaid ugu buuxaa binge la dhahaa doonta inay dhihi lahaa soo asxaabta cuntooyinka halkan laguma soo koobay stick mid kale oo dhahayaa jiro waxay boost garaysaa dareemaha oo dhinaca sirta la dhahay waxay leedahay la dhahay it contains zinc hadaynu ka soo hadlay waxa kale ku jiro vitamin C ka buuxo waxa kale jiro vitamin E vitamin B iron protein waxaana dhan compound-kan oo dhan waxa la dhahay ahaanteeda waxay u fiican tahay ragga iyo dumarka laakiin waxay zaid ugu fiican tahay dumarka soo stick meesha ku maqashid raadso adiga cuntadaas waa isku dayayda muuqaal ahaan inaan ku soo daro qofka waxaa fiican ragga iyo dumarka ahaba maadaama sirta zaid loo soo cabtay lamaanayaasha isqabaan marna ragga lagu eedeynayo marna dumarka lagu eedeynayo asxaabta waxaan dhihi lahaa fit qofka ha noqdo qof qurux badan jirkiisa ha noqdo exercise sameeya asxaabta
because many dad exercise dad waxaan ahay jirkooda sii daayay oo jirkooda jecleen waxaa laga rabaa qofka exercise qofka markuu sameeyo wuxuu noqonayaa qof markasta dhinaca maxaa la dhahaa hamigiisa iyo dhinaca sirta ku noqonaya qof active ah oo qof furfuran oo daaleenin oo kaali maasha Allah tabaarakallah ah laakiin qofka haduu qof yahay isnacay siida cunto cuno qof hilibkiya ka badanayo qofka xitaa depression iyo xaalado badan ku dhacayo so dietkiina hagaajiyaan ilaa cuntooyinkan daba galaan dhihi lahaa exercise sameeyaan dhihi lahaa isjeclaada ha isii daynina dad 70 jir yaal hadda aragtin jirkooda marka aragtid ayaa bisa jirto shirkan bini'aadanka ilaahay ku siina waa laga xisaabtamaayo ilaahay ku weydiin doonaa maxaa ku qabatay iyo maxaa caafimaad u yeelanaysay aday nafsahaada si fiican ku dareentid xitaa depression iyo waxa kaaga baxo imaga muraayada istaagtid inaad daawin karto dhado okay maasha Allah tabaarakallah وين لا كفته مع أصحابته إسعدي لها إسكدي مش إسكدي سنادن كسومالنا هاي هالكاس أيام سيجود بحياة وحرجينا إنه وحكي فائدين channel كينا حرمت عن تضعفمات كهاي لاعبين الشير comment iyo waxa qabtiin fikradin hoos inaan nagula soo wadaagtiin ina sheegaraysiin subscribe sameeysiin la wadaaga kuwa kale oo reeraha isqaba ayaan ka sheekeynaya single-ka isku cuntooyinkaas aan dhihi lahaa hadhow dhibaateyn iyo imaanin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh